doodii maanta ka dhacda villa Soomaaliya oo ay isku hor fadhiisteen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha kala duwan ee golaha mustaqbalka ku midaysan waxay ahayd mid adag oo si weyn labada dhinac ay jilbaha isugu aasteen. qodobo fara badan ayaa miiska la soo saaray, laakiin waxyaabaha ugu badan ee ay doodu ku dul wareegaysa waxaa ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka oo labada dhinac mid walbaahi uu watay aragti gaar ah. dhinacyada mucaaradka ee golaha mustaqbalka oo doodoodu maanta ay cuslayd ayaa miiska soo saaray in maamul goboleedyada saddexda ah ee Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ee muddo dhaafka hadda ah ay aadaan doorashooyin dadban si maamul goboleedyada dalku ay u noqdaan madaxdooda kuwa sharci ah oo doorashooyinka guud ee qaranka meel mariya. dhinaca kale waxaa la isla soo qaaday arrimaha doorashooyinka guud ee qaranka, waxaana la sheegay in la soo jeediyo in dhinacyadu ay ka doodeen gaar ahaan mucaaradku inay doonayeen in la aado doorashooyin dadban oo hufan oo madax bannaan islamarkaana shicibku ay ku qanci karaan. hase haatee dhinaca villa Soomaaliya marka la eego madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kaadirkii siyaasadda ee la ologa ahaa ayaa waxa ay tilmaameen dhammaan aragtida mucaaradku ay wataan in aanay ku qanacsanayn. saddexda maamul goboleed oo ay mucaaradku soo jeediyeen inay aadaan doorashooyin dadban ayaa waxaa la sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay tilmaantay in golaha halkan fadhiyaanay wax aragtiya ku lahayn, isla markaana siyaasadda ay ka gorgortamayaan aanay ahayn dhinacyada hadda ay miiska soo saareen. Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudugna ee aragtiyadooda gaarka ah iyo dowladda Soomaaliya ay ka dhaxayso waxyaabaha doorashooyinka la xiriira iyo waliba sida maamuladaasi laga yeeli karo. hase haatee villa Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay tilmaameen in mid ay ogol yihiin ay tahay oo kaliya in lagala doodo arrimaha doorashooyinka guud ee qaranka. madaxweynaha Soomaaliya waxa uu tilmaamay in marka la eego maamul goboleedyada dalka ka jira qaarkood sida Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iminka ay ka soconayaan dhaqdhaqaaqyo doorasho, isla markaana guddiga madaxa bannaan ee sohdimaha iyo doorashooyinka dalka ee lagu muransan yahay ay iminka halkaasi shaqooyin ka wadaan oo ay suuragal tahay in laga aado doorashooyin qof iyo coda. taasi villa Soomaaliya go'aankeeda marka la eego waxa uu cuntami waayay mucaaradka. kulanka ayaa wararku qeexayaan sida ay noo xaqiijiyeen ilo kala duwan oo la hadalnay in la isku fahmi waayay isla markaana uusan ka soo bixin wax natiijo ah. mucaaradka gogosha galay ee golaha mustaqbalka ayaa la filayaa suurtagalnimada inay war-saxaafadeed soo saaraan, taasi oo hadda kulamo gooni ah ay leeyihiin ay ku gorfaynayaan sida arrimahaasi laga yeeli karayo iyo waliba waxyaabaha ay uga jawaabi karaan go'aankii maanta villa Soomaaliya ay meesha la soo fariisteen. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhinaca la socda ayaa intii aanay iman geedka weyn ee wada hadalka waxay u muuqdeen in geed hoose ay isku soo wareysteen, halka mucaaradka oo iyaga aragti uun watay ay meesha tageen. laakiin waxay u muuqatay hadda xaaladdu inay aad u adag tahay. ma cadda dhinacyada Muqdisho jooga in ay ka laaban doonaan magaaladan iyo waliba in ay sii joogi doonaan oo ay doonayaan inay Muqdisho ku sii sugnaadaan ilaa wada hadalka ugu dambeeyay natiijooyinka la isku fahmi karayo la gaaro. wararka qaar waxay tilmaamayaan inay jiraan aragtiyo kala duwan oo xitaa ay ka mid tahay in xildhibaanada soo socda ay xuli karaan odayaashii 135 ah, taas oo haddii ay dhacdo ay u muuqato Soomaaliya in halkii geediga ay hore u wadi lahayd ay suuragal tahay in ay dib u wado. walaac badan ayaa laga qabaa jiritaanka jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya iyo halka laga aadi doono isku iskan siyaasadeed ee maanta uu wadanku taagan yahay. soo dhawaada.